kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Jubbaland fadhigiisa 29aad ayaa waxa uu maanta ka qabsoomay xarunta baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland kaas oo ay ka soo qayb galeen 44 xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland waxaana kulanka baarlamaanka uu maanta ku saabsanaa magacaabista guddiga baarlamaanka Jubbaland oo ka qayb galayo doorashada xubnaha aqalka sare ee maamul goboleedka Jubbaland oo ku yeeshay dawladda federaalka kuwaas oo dhawaan ay doorashadooda ka dhici doonto magaalada Kismaayo waxa uu horeyn goobta ka hadlay gudoomiyaha habdhowrka baarlamaanka Jubbaland waxaana uu sheegay wareegtadii uu magacaabay guddiga doorashada aqalka sare ee dawladda federaalka qaybta dowlad goboleedka Jubbaland waxaan maanta oo taariikhdu tahay 16 bishii 10aad 2016 wareegto ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka laguna magacaabayo xubnaha maamulaya doorashada aqalka sare waxayna kala yihiin magacyada soo socda xildhibaan Axmed Ismaaciil Maxamed number 1 number 2 Axmed Iftiin Golija number 3 Faadumo Faarax Aadan Afar Xuseen Xirsi Axmed شان شكري عبد الله محمد لح حسن آدم إبراهيم intaasi kadib ayaa xubnaha baarlamaanka Jubbaland ee kulanka soo xaadiray waxay cod gacantaaga u qaadeen xubnaha guddiga oo uu soo gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland waxaana gacantaagaasi kadib ku dhawaaqay natiijada gudoomiyaha baarlamaanka Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan waxaana uu yiri أهلاً شرفتنا يو صحافة يو شغالة ينتما أنت كالفرق يسوع هذا الدعاء نفرتني وافر صوتا يتطلع وحاول على يسي ها شاننا ويدي لوان ويكا مستي مركزنا أقول جده وأنصح أنت تمسنتي ansixinta iyo ku dhawaaqida guddigana ka tirsan baarlamaanka Jubbaland ee maamuli doona doorashada xubnaha aqalka sare ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa imaanaya xilli lagu wado in dhawaan lagu dhawaaqo xubnaha aqalka sare ee maamul goboleedka Jubbaland oo ka qayb gali doona dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Qaasim Cali Waxar TV-ga caalamiga Star magaalada Kismaayo